hay-adaha amniga deegaanka oo ciidanka gaarka ah, ciidanka booliiska, maleeshiyada iyo hay-adaha kala duwan ee ka shaqeeya iyo kuwa guud ee dalkaba waxay maanta ku sugan yihiin run ahaantii xaalad wanaagsan oo guud ahaan deegaankeena amnigiisu waa sugan yahay. wax hadda external threat oo ka baqayno ma ay jirto awood lagu sugo amniga deegaankeena hay-adaheenu maanta waa ay leeyihiin. tiro ahaan waa la kobciyey, agab ahaan iyo xirfad ahaanna waa la kobciyey. waana hawl lasii wadi doono meel kuwa keenoo sii socon doonta oo in garaadkooda iyo technology ahaan loo dhiso hawl sii socon doonta weeye. marka laakiin si guud hay-adaha amniga deegaankeena waa hay-ado amni oo awood u loo kara inay dhibaatooyinka iyo waxyaabaha lala kulmi karo ka badbaadin karaan dadkeena wey. marka si guud laga soo tago dhismaha hay-adaha amniga lagu sameeyey iyo qaabka ay uga go'an tahay deegaanka amnigiisa ay u sugaan, waxaa jira waxyaabo yar yar oo gudaha deegaankeenna u baahan bulshada in lala socodsiiyo oo had iyo goor ay update ahaato. waxaa ka mid a waxaad ogtihiin xilligii isbeddelku u dhacay wixii ka dambeeyey samaynta deegaameyn cusub in laga joojiyo deegaanka inay dadku sameeyaan. waayo dadkeennu waxay ku magaaloobi karaan ama horumarkoodu ku hirgeli karaa inay urursan yihiin. oo tusaale ahaan waxaan isla ognahay tuulo walba ama magaalo walba inta ay ka population badan tahay midda kale buu dhaqdhaqaaqa ganacsi iyo nolosheedu ay ka wanaagsan tahay. sidaa darteed si horumarkii dadkii uu gaadho in wixii jiray uun horumarkoodii la adkeeyo oo iyagii la dhiso, aysan waxba muhiim ahayn in qof walba meel uu tuulo yar ka sameeyo oo maaragtay aysan keenaynin wax horumar ah. cidda xoolo dhaqatada ah sideed iskaga gurguuraysa kolba meesha daruuf roob ay ka deeda tagaysa waa iska caadi oo xoolo dhaqatadu xad ma leh, way iska fasaxan tahay. laakiin tuuleynta waxa la yidhaahdo in tuulooyinka hore la xoojiyo kuwa dambe aan la dhisi karin. marka sidaa darteed waxaa soo laalaabatay in dadyow isku dayahaya ay jiraan inay waxyaaba dhisdhisaan. marka sidaas darteed ciidamada amniga ee deegaanka, hay-adaha amniga ee deegaanka guud iyo maamulada ka jira degmooyinka gobolada iyo qabaledada waxay furan yihiin awaamiir ah wax deegaameyn cusub oo la samayn karo inaysan jirin. ciddii samaysa laga duminayo tallaabo sharcigana laga qaadayo. xoolo dhaqatada iska guurguuraysa meelba meel tegaysa xadidaad ma leh, laakiin in tuuladii halkan ku taalay meel 3 kilomitir 2 kilomitir u jirta geeda la qodqotamiyo la yiraahdo reer hebel baa iska leh, horena waa loo joojiyey, haddana waa nooga digaynaa cidda howlaha ayaa ku mashquulsan in tallaabo sharci ah laga qaadi doono. waxaa iyadna jirta maamulka dhulku 2 qaybood buu u qaybsamaa guud ahaan dalka iyo deegaankaba. waa maamulka dhulka magaalooyinka iyo maamulka dhulka miyiga wey. marka dhulka miyiga iyo dhuldaaqsimeedka cid gaar u leh oo gaar u sheegan karta guud ahaan ma jirto. cid odhan karta dhuldaaqsimeedka intaa dhan aniga iska leh ma jirto, mana suurageli karto. waayo dhuldaaqsimeedku waxa weeye waa communal land weeye, waa dhul la wada leeyahay dadka wada daaqaan. waagi dhaweyd abaarta markii ay deegaankeena ka dhacday guud ahaan dadka goboladan hoose degan hadday tahay Jarar, Qabdahar, Doollo, xoolahooda waxay joogeen waxay ahaayeen gobolka Faafan ilaa City bay xooluhu daaqayeen. marka sidaas darteed dhuldaaqsimeed cid sheegan karta iyadna oo oran karta dhuldaaqsimeedkaas annaga iska leh ama aniga iska leh ma uu jiro. dhuldaaqsimeedku waa dhul la wada leeyahay, waa dhul la daaqo. dadka Soomaaliyeed iyo dadka xoolo dhaqatada ah xuduud ay kala yeelan karaan oo daaqsin oo jiri karta guud ahaan ma ay jirto. marka midaas iyadaana inay san ku kadsoomin dadyowga isku dayahaya inay dadku abaabulaan dhulkaas daaqsimeedka inaga iskale kaas iskale hanoo kala xadeeyo oo kale reer hebel wax reer hebel oo xad ay dawladdu sameynayso ma ay jirto. guud ahaan administration border wala sameyn karaa ama xad maamul oo tusaale ahaan degmada Hiblaayo iyo degmada Hiblaayo yani waxa administration border koodu uu ku ogyahay taana qabalahaas midana qabalaha wala oran karaa. laakiin reer hebel waxa xad u ah ma aragtay geedkaas tubtaas halkaas wax soconaysa wax jiraysa ma yahay. marka sidaas darteed in waxyaabaha noocaas oo kale ay dadku aysan ku katoomin oo shuruuc dawli ah waa nidaam dawli ah. marka waxyaabaha keenaya inay dadyo isku dhacaan waa waxyaabo kamid ah way. marka sidaas darteed dhul daaqsimeed cid sheegan karta ma jirto.
tuulooyin cusub oo la samayn karana cid samaynaysa ma jirto ciddii samaysana tallaabo sharci inay ka qaadaan bay faran yihiin dhammaan hay-adaha amniga iyo maamulada kala duwan ee dowliga waxaa kaloo yadma jira dilal ka dhaca laga yaabo qof dambiile ah inuu dil ka dhaco waayo dambiyadu way dhacaan oo ujeeddada loo samaynayo traafiga loo samaynayo ciidamada ammaanka yani hay-adaha kala duwan ee amniga ay u howlgalahayaan yani dhib baa dhacahaya marka hore ka hortag in la sameeyo oo uusan dhicin haddii uu dhacana sharcigeeda iyo tallaabadeedii laga qaado marka sidaas darteed dilka cidda geysata waxa weeye tallaabo sharci baa laga qaadahaya waxaa laga yaabaa meelaha qaarkood inay iska jirto gacanku dhiiglihii oo iska jooga intii mag yar la kala qaato in berrina uu ka kala dilo midna ku kala dilo waxaan soo daraasaynay 6 bilood ee u dambeysay dilalkii ka dhacay deegaanka gudihiisa iyo ciddii geysatay magacooda oo saddexan gudahaan waa la soo qaban gacanta dowladda la soo gelinay marka sidaas darteed gacanku dhiigle yani kuma dhex noolaan karo bulshada dhexdeeda marka sidaas darteed hay-adaha ammaanku waxay faran yihiin in gacanku dhiiglayaashii dilalkii u dambeysay geystay ay keenaan sharcigan horgeeyaan bulshada deegaankana waxaan ka codsanaynaa inay farta ku fiiqdo waayo ammaanku cid walba dan u yahay nabadgelyadu cid walbay dan u tahay amni la-aan dadku xor ma noqon hayaan sidaas darteed qofka qof kas u dila gacanku dhiigla kama aysan ahayn dila in hay-adaha amnigu taakulayn ay ka siiyaan shacabku inay farta ugu fiiqaan ay soo qabtaan baan iyaduna ka codsanaynaa isku dhacyada qabaa'ilada ma jiraan isku dhacyo badan oo qabaa'ilo oo hadda deegaanka culays ku hayo jiro oo socda ma ay jiraan laakiin haddii ayba dhacaan qabiil baa isku dhacay ma odhan karo laakiin ashkhaas laga yaaba inay meel wada degan yihiin ama dad kooban baa laga yaabaa in waxuun ama ceel ama ay ku murmeen ay wax isku geystaan midaas yada waxaan iyadna digniin ka bixinaynaa meel walba oo isku dhac yar ka yimaado ama ifafaalaheeda yeelato waxaan ku samaynaynaa hubka dhigis waxaan ka ururaynaa qoryaha agga dadka ay ku haystaan dil waa dil shabaab haddii qof kaa disho iyo qof dambiilaha hadduu qof kaa dilo waa un laba dil marka sidaas darteed meel walba oo iyadna qori isku dayda in qof uu ku dilo qof kale oo dariskii oo walaalkii ku waxyeeleeyo ereyadaas waxaan ka samaynaynaa dabka dhigis ciidamada amniga iyo guud ahaan hay-adaha ammaanka deegaanka iyo maamulada degmooyinka gobolka iyo qabaneedada waxay faran yihiin iyaguna iyagoo iskaashanhaya meel walba oo dhibaato yar ay ka dhacdo oo qori loo adeegsanayo qof shacaba in ereyadaas ay hubka dhigis ay ku sameeyaan wayna hirgelaysaa hawshaas tallaabooyin fiican oo hadda la qaadayna way jiraan waana la sii xoojin doonaa waxaa iyadna kaloo jira dowladdu mashaariic bay wadaa horumarineed oo deegaankeenna waxaan ognahay muddooyinkii badnaa ee uu soo jiray dhanka horumarka wax laga qabtay ma ay jirto baahiyahan faraha badan ee hadda jira waa baahiyo loo baahnaa in dowladihii hore ay wax badan ka soo qabtaan wax badan lagama soo qabanin hadday tahay dowladihii hore ee dhargigii waxay ka horreeyey haddii ay tahay tii kale ku xigtay yacni horumar la taaban karo oo deegaankeena laga sameeyey ma uu jiro biyihii baa laga ooman yahay wax soo saar balag baan jirin oo fiican oo maaragtay dadkeenu hadda un ay ku baraarugsan yihiin oo ku baraarugeen iskuulladeennii baan garanaynaa hadda dhibaatooyinka ka jira hadda marka isbeddelku intii ka dambeysay waxaa jira kicitaan dhanka dowladdana ka socdo horumarkii la isku dayayo in la gaarsiiyo meelo badan dhankii bulshadiina isxilqaankeeda ay samaynayso hadday tahay magaalooyinkana mashaariic maalgashi laga samaynayo beerihii laga qayb qaadanayo qurba joogtii iyo dadkii maalqabeennada ahaa tabarucaad ay iskuulladiisa ku dhisahayaan marka sidaas darteed mashaariicda dowladdu ay fulinayso cid iyadna hor istaagi karto oo mashruucaas halkaa lagama fuli odhan karta ma jirto waayo mashruucu dhibaato ma wato mashruuca dowladda ay fuliso dadku waa u siman yihiin cid gaar u leh ma jirto cid mashruucu dowladeed tirsan karta oo annagaa gaar u leh odhan kartana ma jirto heer santarka magaalada jigjiga ku yaalla cidda magaalada jigjiga degan way ka faa'iidaysataa cid gaar uu u adeega ma jirto heer santarka ku yaalla qabale exna waa un sidaasoo kale cidda ereyada degan baa ka faa'iidaysanaysa ceelka magaalada jigjiga ay dowladdu ka qodo waxa ka faa'iidaysta waa bulshada magaalada jigjiga degan wey ceelka laga qodayo meel heblaayo goob kale laga qodayona cidda ka faa'iidaysanaysa waa cidda halkaa joogto noocay doonay ahaato cid gaar ah oo mashruuc dowladeed mulkiyadiisa sheegan karta ama sheeganaysa ama annagaa leh odhan karta ma ay jirto totally guud ahaan marka sidaas darteed mashaariicda dowliga ay bulshada u baahan tahay waa la fulin
marka waxaanu leenahay bulshadeenu maanta horumar bay u baahan tahay waxay u baahan tahay inay gacmaha isqabsato wax wada qabsatay u baahan tahay in ay isxurmayso istixgelisay u baahan tahay marka mashaariicda la fulinayo ee bulshada wax tarka u leh waxa weeye ee dawladdu ay fulinayso iyaduna way fulahayaan marka sidaas darteed dadyowga laga yaabo masaakiin oo waxba ogeyn oo badeeco siyaasadeed cid kale ay ka iibinayso iyagoon garanaynin fariin ay u dhiibayso muhiim ma aha inay dhageystaan kuwa fariimaha dhiibahayana wax maslaxo iyo wanaaga uguma jirto in horumarkeena uu maaragtay waxyeeloobo ay wax gaadho dib u dhaco marka sidaas darteed mashaariicda ay dawladdu fulinayso ee horumarineed hadday yihiin heer santaro la dhisayo hadday yihiin waddo la samaynayo hadday tahay biyogelin hadday tahay ceel la qodayo waa la samayn waa la qodi bulshada halkaa joogto marka faa'iidaysanaysa cid gaar u leh oo u sheeganaysa ma jirtee waa public project wey waa mashruuc ay bulshada Soomaaliyeed ay leedahay wey marka taana in maaragtay sidaas loola socdo guud ahaan deegaanka amnigiisu si fiican buu u xasiloon yahay wax dhibaataana ma ay jirto waxaa iyadna aan uga digaynaa si guud dhalinyarada magaalooyinka ku nool gaar ahaan magaalooyinka bulshadooda ay aad u badan tahay waxaa kusoo kordhaya waayadan dambe xashiishadaha baa kusoo kordhaya gaar ahaan magaalada Jigjiga waa magaalo caasimada weyn weeye waa magaalo ay ummad badan kusoo qulqulayso oo la degayo weeye oo hadday tahay dhanka amniga iyo hadday tahay strategic position ay ku taalaba yani waa magaalo populationkeedu uu si xoog leh kor ugu kacayo weeye waxaa jira robot ka imaanaya xagga miyiga oo dadkii miyigii abaarihiiba ha fara bataan ama si ahaanba noloshii oo dhib badan dadka magaalada soo galaan magaalooyinka dadku aad soo galahayaan dhanka kaleetana fursado maalgashi iyo ganacsi iyo bulshada maadaama ay jirto aad baa loo imanaya marka sidaas darteed dadyo badan baa marka dhaqamo kala duwan iyo waxyaabaha in hore badan bay suuq keenayaan waxyaabaha waxaa kamid marka xashiishada kamid sidaas darteed in si wada jira bulshada iyo ciidamada ammaanku ay la wada dagaalamaan oo si aysan dhalinyaradeenna inooga khasaarin in aan la dagaalano draagiskaas waa draagis dhib badan oo foolxun weeye waa draag dadka dila weeye oo qofku maaragtay mustaqbalkiisa iyo jiritaankiisiba waa burburinaya weeye marka sidaas darteed taana inaan si wada jira aan uga wada shaqayno baan guud ahaan bulshada magaalooyinka maaragtay ka codanaynaa lala wada dagaalamo culimada aqoon-yahanka iyo dadka waxgaradkaaba ay tilmaamaan tubta wanaagsan garab ay u noqdaan maaragtay hawlahaas la dagaalankooda ay ku mashquulsan yihiin ciidamada dawladdu si guud ciidamada deegaankeena meel walba joogaan xuduudaha joogaan oo dabaysh iyo bood iyo dhagax ku jifaan magaalooyinka waaweynaa bay tuman yihiin oo dhaxantii iyo dabayshii ay ku dhaxayaan nin walba Jigjiga hadda maqribkii markii uu joogo gurigiisoo galaa laakiin ciidamada ammaanku gurigooda ma galaan habeenkii irdaay taagan yihiin wadooyinkay taagan yihiin waxay u taagan yihiin wax kale ma aha waa in la xaqiijiyo dadkaas inay nabadgelyo haystaan marka sidaas darteed ciidamadii iyo hay'adaha amnigii sida uu rafaadayeen adigu gurigaaga nabad ku barido dhibaatooyinka u marayay in ay ku mashquulaan waxyaabo aan micno lahayn oo yar oo meel heblaaya la isku haystaa daaqsimeed baa annaga alihi munaasab maaha umana qalmaan marka sidaas darteed cid walba wax garad ah cid walba maaragtay aqoon-yahana culimada iyo dadka waxgaradkaaba maanta inaan horumarkeena kor u qaadan bulshadu ay ka qayb qaadato dhismaha magaalooyinka iyo maalgashiga ay ka qayb qaadato horumarka laga fulinayo deegaankeena guud baan u baahannahay mashaariicdana looga wada faa'iidaysto oo bulshadu si siman ay uga faa'iidaysto ku xidhnow lana wadaaga asxaabtaada faalladaadu waa muhiim Dagaaran Media waa saaxiibka dadweynaha